بسم الله الرحمن الرحيم waxaan halkan ku soo gudbinaynaa warmurtiyeed ay si wada jira u soo saareen dawladaha xubnaha ka dawladda federaalka Soomaaliya ee dawladda Puntland iyo dawladda Jubaland madaxweynayaasha dawladaha Puntland iyo Jubaland ee Soomaaliyeed madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dani iyo madaxweyne Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madoobe ayaa shir wada tashi ah ku yeeshay caasimadda dawladda Puntland ee Garowe 23 ilaa 25 bisha June 2025 shirka ayaa diiradda lagu saaray guud ahaan xaaladda uu marayo dalka Soomaaliya gaar ahaan arrimaha amniga la dagaalanka argagixisada al-shabaab iyo Daesh hubinta la'aanta siyaasadeed ee muddooyinkan dambe haraysay hanaanka geedi socodka dawlad dhiska Soomaaliya khaasatan in hoggaanka dawladda federaalka uu ku takrifalay dastuurkii ku meel gaarka ah haddaba shirka waxa ka soo baxay koow shirku wuxuu bogaadinayaa guulaha ay dawladda Puntland iyo dawladda Jubaland iyo shacabkoodu ka gaareen la dagaalanka argagixisada al-shabaab iyo Daesh guushaasi waxay tusaale u tahay in Soomaaliya iska xoreyn karto cadawga gudaha iyo kan dibadda uga soo duulay ee argagixisada haddii ay hesho midnimo niyad sami iyo hoggaan daacad ah waxa sidoo kale shirku uu soo dhaweynayaa dadaalada la dagaalanka argagixisada al-shabaab ee ciidamada Soomaaliyeed iyo kuwa shacabku ay ka wadaan gobolada kale ee dalka labo dawladaha Puntland iyo Jubaland iyagoo mar walba u taagan midnimada iyo wadajirka dadka iyo dalka Soomaaliyeed waxay ku heshiiyeen inay u midoobaan meel looga soo wada jeestaan sidii Soomaaliya ay u gaari lahayd dawladnimo dhameystiran oo ku dhisan hanaanka federaaliga ah dimuqraadi ah nabadna ah iyadoo laga duulayo dastuurka ku meel gaarka ah ee 2012 waxayna ugu baaqayaan dawladaha federaalka Soomaaliya inay ixtiraamto dawladda federaalka Soomaaliya dastuurkii heshiiska lagu ahaa saddex dawladaha Puntland iyo Jubaland waxay isku raaceen in guud ahaan ay waxba kama jiraan tahay wax ka bedelka la sheegay in lagu sameeyay dastuurka ku meel gaarka ah ee dawladda federaalka Soomaaliya hay'adaha dawladda federaalka awood uma lahan wax ka bedelka qodobada asaasiga ah ee dastuuriga ah ee tiirarka dawladnimada heshiiska lagu yahay si waafaqsan dastuurka heshiiska lagu yahay sanadkii 2012 la sameeyay kaas oo ku dhisan heshiis bulsho waxna looga bedeli karo waxaana wax looga bedelo kaliya ay tahay afti dadweyne sidoo kale dawladaha Puntland iyo Jubaland ma aqoonsana wax kasta oo ka dhashay wax ka bedelka lagu sameeyay dastuurka afar dawladaha Puntland iyo Jubaland waxay si adag ugu baaqayaan ku dhaqanka iyo ilaalinta dastuurka heer federaal iyo heer dawladaha xubnaha ka dawladda federaalka ah sida ku cad qodobka 142 farqadiisa koowaad inta laga mideynayo dastuurada labada heer dawladaha xubnaha ka dawladda federaalka waxay ku dhaqmayaan awoodaha ay siinayaan dastuuradooda gaarka ah shan shirku wuxuu ugu baaqayaa dawladaha kale ee xubnaha ka dawladda federaalka ee Soomaaliya inay qabtaan doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo madaxweynayaasha ayna magacoodaan gudiyada doorashada heerkooda si waafaqsan qawaaniintooda doorashada lix si loo daadejiyo xukunka loona hirgeliyo hanaanka dimuqraadiga ah sida uu qabo dastuurka ku meel gaarka ah iyo dastuurada dawladaha xubnaha ka dawladda federaalka Soomaaliya shirku wuxuu ugu baaqayaa dawladaha aan wali qaban doorashooyinka dawladaha hoose inay qabtaan doorashooyinka golayaasha deegaanka ee tooska ah ayna magacoodaan gudiyada doorashooyinka ee qof iyo cod sida Puntland dawladda Puntland waxay diyaar u tahay inay gacan ka siiso maamulada kale hirgelinta hanaanka doorashooyinka qof iyo cod gaar ahaan dhinacyada khibradda iyo shuruucda doorashooyinka toddoba dawladaha Puntland iyo Jubaland waxay ugu baaqayaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya inuu ixtiraamo dastuurkii lagu heshiiyay 2012 ilaaliyana midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed uuna dhageysto baaqyada ka soo baxaya mas'uuliyiinta iyo waxgaradka Soomaaliyeed si loo badbaadiyo dawladnimada Soomaaliya sideed shirku wuxuu soo dhaweynayaa dadaalka golaha samata bixinta iyo madaxda kale ee ku hawlan sidii dalku uga bixi lahaa marxaladaha hubanti la'aanta siyaasadeed iyo amni loona qaban lahaa doorasho loo dhan yahay oo ku dhacda waqtigeeda sagaal shirku wuxuu soo dhaweynayaa dadaalada iyo diblomaasiyiinta saaxiibada Soomaaliyeed ku doonayaan in geedi socodka dawladda Soomaaliya uu noqdo mid loo dhan yahay dawladaha Puntland iyo Jubaland waxay cadeynayaan in dawladda federaalka aysan ku metelin wixii go'aan aysan Puntland iyo Jubaland qayb ka ahayn
toban dowladaha Puntland iyo Jubaland waxay cambaaraynayaan in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay siyaasadeynayso kuna takrifanayso kaalmada caalamka iyadoo dowladda federaalka ee Soomaaliya ay mararka qaar u isticmaalayso hub siyaasadeed isku dir iyo kicin bulsho iyo xasiloon darro looga abuuro dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka Soomaaliya haddaba dowladaha Puntland iyo Jubaland waxay beesha caalamka ugu baaqayaan in dib eegis lagu sameeyo habka loo gaarsiiyo Soomaaliya kaalmada ay bixiso beesha caalamka isla markaasna ay deeq bixiyaashu toos ula macaamilaan dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka Soomaaliya inta heshiis buuxa laga gaarayo hanaanka qaybsiga khayraadka iyo awoodaha dalka dowladaha Puntland iyo Jubaland waxay cadeynayaan in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay si xun ugu takrifashay awoodaha afarta ah ee uu siinayo dastuurka ku meel gaarka ah ee federaalka Soomaaliya gaar ahaanna maamulka adeega hawada Soomaaliya iyadoo uu isticmaasha aalad siyaasadeed oo ay ku waxyeeleynayso nolosha bulshada ku nool dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya hadba cidii ay siyaasadda ku kala aragti duwanaadaan haddaba dowladaha Puntland iyo Jubaland waxay cambaaraynayaan ficiladaasi isla markaasina waxay cabasho u gudbinayaan hay'adaha qaramada midoobay u qaabilsan maamulka adeega duulista hawada ee UNICAO aad iyo aad baa mahadsantiin